magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay barnaamij looga doodayay dib u eegista dastuurka oo ay ka qayb galayeen ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya. warkan Maxamed Deeqsi ayaa Baydhabo ka soo diray. kulan dood wadaaga oo lagu hadlayay madasha qaybgelinta bulshada geedi socodka dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Baydhabo kaasoo intuu socday ka qayb galeen qaybaha kala duwan bulshada ku nool magaalada Baydhabo. agaasimaha wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed Jeylaani Cabdullaahi Xaaji ayaa kulankan intuu socday ka warbixiyay muhiimadda uu lahaa kulanka. waxaan u maleynayaa doodan inay ahayd dood aad iyo aad u caafimaad qabto aad wixii maskaxdinka guuxiisa aad weydiiseen qabiirada iyo howlwareennada ka socda ee wasaaradda arrimaha dastuurka federaalka iyo macadka Serbet iyo wasaaradda arrimaha dastuurka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose iyo federaaleedka Koonfur Galbeed. barnaamijkan dood wadaaga sida ogtihiin ama arkaysaanba waxaa iska kaashaday afar institution afartaasna waxay ku xusan tahay boorka. marka dooda waxaan u maleynayaa inaad dhiibateen fikradiina waxaad hesheen jawaab ku habboon su-aalihii aad weydiiseen khubarada ka socda dowladda federaalka iyo kuwa Serbet iyo wasaaradda. waxaan idinka mahadcelinayaa 100% ka soo qaybgalkiina. Cabdiqani Cali Cabdi oo ah agaasimaha waaxda wacyigelinta dastuurka Soomaaliya wuxuu asagana u jeediyay muhiimadda uu lahaa kulankan dhamaaday. macadka Sibad barnaamijkan soo agaasimay asagoo kaashanaya wasaaradda dastuurka ee federaalka iyo wasaaradda dastuurka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed. runtii barnaamijyada noocan oo kale ah xamar wax badan baan ku qabanay oo public engagement forum-ka ah. waxaan rajaynaynaa gobolada oo kale inaan sidaan oo kale ugu qabanno dhowr jeer baan ku soo laalaabanay Baydhabo oo aan ku qabanay programka noocan oo kale ah. runtii programka noocan oo kale wuxuu muhiim u yahay in dadku ay ka qayb galaan participation ay ku sameeyaan arrimaha dib u eegista dastuurka maadaama dastuurku uu ka mid yahay arrimaha inclusive politicska oo runtii ay ku midaysan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha iyo electionska iyo wasaaradda dastuurka. maantana panelistayaasha aad weydiinayseen isla markaana fursad ugu hesheen inay ka jawaabaan su'aalo la xiriira doorashooyinka federaaleynta iyo arrimaha dastuurka. sidoo qorshu yahana dastuurkan in la soo gabagabeeyo June 2020 intaan la soo gabagabeyn muhiimadda waxa waaye participation inuu jiro oo ay ka qayb galaan dadweynaha maadaama uu yahay heshiis bulsho waa inuu ka tarjumaa rabitaanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed haddii aan lahayn dhalinyarada iyo haween iyo odayaal intaba. waqtiga oo aad u yar mahadcelin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa panelistayaasha barnaamijka ka qayb galay iyo dadweynaha. Maxamed Isaaq Deerow, telefishinka caalamiga SBS TV magaalada Baydhabo.